السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل شيء ونكسر صاحبي المركل ميركز تو أتشوكتان هل كانوا مصطفى الشو وأنا قلنا مصطفى حجادن كسر دو هذا قيبتي لبعض شكل إني تعنا هيدا بس شكل تعالى تعنا هيدا لما قاعد بحضي ملبكة شكل هذا ملبكة وحقري عبد الله أيان لعرتنا وحقري دكان دل كان يجربك waxaynu joogtay qaybteedii hore iyadoo ay sheekadu saddex gees tahay isla markaana Cabdalla uu gabadhii la soo fadhiistay goobtii qaxwaha laga cabayay si kadiisana ay ugu soo baxday jacaylkiisii oo magaaladeeda uu joogo balse aanu ku wargelinin isla markaana goobta ay la soo fadhiisatay iyadoo su'aal weydiinaysa marba midkood sheekadana saddexdoodu ay iska soo horjeedaan isla markaana su'aashii ugu dambeysay ee jacaylka Cabdalla ay weydiisay ama jacaylka qoraagu ay weydiisay inantii meesha fadhiday ayaa u dhigmaysay walaal ma sheeko jacayl oo khaas oo aan idinka qasay ayaa jirta gabadhii maxay ku jawaabtay raalli ahada intaasi kadib waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa 247 qof ee ugu dambeeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay subscribe ka saaray Mustafa Show ama channel-kani thank you baan idin leeyahay waxaan idin codsanayaa mar kale in saaxiibadiin la share gareysaan ama aad hoos ugu yeedhaan bal haddii qisadan oo kale ay kugu dhacday ama aad hayso fikirkan ku saabsan ama adiga oo aan qofkaaga u sheegin goobtiisa inuu tagayo aan ku wargelin in sidan oo kale ay kugu dhacday qoraagu runtii waxa uu soo gudbiyay sheeko farshaxamaysan oo macnaheedu aad dareemi karayso khaladaadka iyo caqabaduhu sida ay u dhacaan aan loogu talagalin ku soo dhawaada haddaba qaybtii labaad ee sheekadii malabka waxay ku jawaabtay hadal xanaaq ka muuqdo iyo cod dheer waliba maxaa kaaga jira jacayl iyo nacayb waxaanu ka sheekaysanaynay markaasi waliba si raacisay waa degdegsantahay in adeer ee booskaagu ha ku qaado si aad u fulxun baa loola hadlay jacaylkaygii xanuun badana adigoo aan idhaahdee buuri ayaa lagu tufay iyadana aad baa wejigeedii isu bedelay oo waxaa wejigeedii soo buuxiyey dhidid ayaa fah ka soo yidhi waliba waxaa dumarku ay isku qurxiyaan ee loo yaqaano make-upka ayaa dhididkii qooyey oo midabkii wejigeedu annagoo arkayna ayuu wuxuu isu bedelay caanafiinto aniga laftaydu hoos ayaan ka dareemayaa dareen qof aad saaxiib tihiin ama aad isjeceshiin marka si xun loogu laydhiyo la dareemo oo kale inkastoo aanan aqoonin magacaan ku sheego dareenkaasi waxa uu yahay haddaba gacalisadaydu si cadhale bay u tidhi naag baad ninkeedii maqaaxyaha iskala fadhidaa weliba waad ku soo indhacaddahay nacas yahay war naxdin weynaa maanta ma naxdin baan talow u dhiman doona anigu juuqiya jaaqtoonna ma lihi oo arrimuhu si alle si aan u galo ma aqaano inantii iyada lafteeda naxdin baa ay haq tidhi oo bilowgii hore ayaan u sheegay inaanan weli anigu guursanin kolli niyadda waxay iska leedahay muxuu beenta kugu sheegay hadduu xaasile yahay inanku mise waxa uu doonayaa sida Safwan afar xaasle oo kale inuu isaguna nustirsin gabdhaha jimlaysto ama macnaha inuu hal ama ka badan hablood arooso saasuu kaaga qariyay sidoo kale waxay ku jirtaa xaalad argagax ku ah ilaa gabadh baa ugu timid iyadoo oo ninkeedii shukaansanaysa ama goob qaxwo ah la fadhida haddaba waxay niyadda iska leedahay ileen inankan walaaltinimo baad u wada fadhideen ee tolow ma waxba idinka dhexeeyay oo islaam allow awal ma waxba u sheegatay inanka runtii iyada ayaaba kala shakiday inantii ayaa weji naxdin iyo cabsi ka muuqata mar kale aniga igu soo eegtay oo igu tiri walaal inantu maxaaskaagiiba waa su'aal aad u adag oo runtii ka adagtii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo la weydiiyay ee uu ka jawaabi kari waayay waan aamusanahay oo hoos ayaan u fakaraya ayuu yiri qoraaga sheekadani Cabdalla ayaan la artan jacaylkaygii indho kulul bayaduna igu soo eegaysaa oo labadayda bishmood bay gambadh soo ag dhigatay macnaha waxay dhowraysaa kelmad kastoo afkayga ka soo yeeri doonta haddii uu jiri lahaa daawade remote codka lagu soo saaro waxaan filanayaa in iyadu saacadaasi ay iga hadlin lahayd oo kelmad kastoo ay doonayso afkayga ay ka soo saari lahayd intii aanan jawaabin ayay inantii mar kale hadalkii igu boobtay oo su'aal kale oo sidan ahayd i weydiisay war walaal maxaad beenta igu sheegtay ee igu tidhi weli maan guursanin markaasi aniga talo way igu caddaatay laakiin go'aan baan qaatay ah inaan anigu runta shayga la yidhaahdo uun sheego waxaan ku yidhi inantii walaal gabadhan isma qabno mana ahan xaaskayga mana aanan isguursan beenna kuma aan sheegin laakiin xidhiir jacayl baa labadayada naga dhexeeya jacaylkaygu waa ay naxday haddana masayrkii baa ku soo laba kacleeyey marka jawaabtaasi waxa ay been ka dhigaysaa jacaylkayga ileen isma qabne iyaduna daawada waa tii imika lahayd naag bad ninkeedii maqaaxi la fadhidaa waxay isweydiinaysaa muxuu gabadhan isaga dhisayaa muxuu hadalkaaga aad yar kuugu raaci waayo oo adiga kuu bahdilayaa adiga nacas ahe soo mar hore ayaa laga dulguuray laakiin markii la jacaylkaygu isma ay weydiin anigu inaan runta u sheegay balse iyada masayrkii baa ka sii tanbadiyay oo madax maray laakiin aniga in aan runta sheego mar walba iyo meel kasta waagi aanu iyada isbaranaynay baan u sheegay ilaa iminkana wadadii ayaan ku taaganahay inantii oo yaaban waxa meesha ka socda ayaa waxay tidhi walaal marka labadiina keebaa been sheegaya inta markii ay tiri ayay booday jacaylkaygii oo intay si xun oo anshaxa ka baxsan noo aflagaadaysay iska baxday
waxaa si kadisa haddaba anigu aan u arkay jaakadeedii oo halkaasi taalla ama kursiga dul saaran oo ay ilowday bannaankana waxaa ka dhacaysay dhaxan aad u xun waana xilliga lagu jiray wakhtigii barafka amaba loo yaqaano fintarka waan istaagay oo soo dhaqaaqay si aan jaakadeeda uga dabageeyo sawinantii oo moodaysa inaan ka daba boodayo ayaa iyaduna igu soo dhegtay oo gacanta isoo qabatay sankana iga soo gashay waxaan rabaa inta aanad bixin inaan arrin kala hadlo yaab kale ayaa ay aniga igu noqotay laakiin jaakada aan u geeyo ee horta isiida waan soo laabanayaa ma ay soo laabanaysid ee iminka ila hadal aniga oo wax alla waxaan yeelo garan la baan arkay jacaylkaygii oo soo laabatay on filayo in jaakadeeda ay u soo laabatay oo ay xasuusatay laakiin aniga iyo gabadhii gacmaha ayaanu markan is haysanaa amarka ilaahay oo iyanaha bixin bay leedahay nasiir naxariis leh waxaan ku leeyahay waan kuu soo laabanayaa walaal wax yar isug hoosta ayaanu iskaga jirnaa naxdin weyna iyadiina halkaasi bay ka soo gashay iyadoo xaalku sidaas isu bedelay markii halkaa ka soo baxday gabadh kale gabadha dhabarkeeda anigoo arrintii argagax bay igu noqotay iyo wadnagow gabadhii way aragtay in waxa aan arkay in aan anigu wax arkay dib bay eegtay waaba gabadhii oo halkaasi soo laafiyoonaysa weliba waa gabadh dheer oo sidaa isu soo ruuxaysa nafluhu uu cajabayo dhaayuhu aanay mar qura daawashadeeda ka libiqsanaynin qaabka tacabjabka leh ee allah uu addoontiisaasi u abuuray anigu bari hore ayaa igu dambaysay hadal iyo hawraarba oo waan liganahay uun meesha waxaa oo dhib ah ee haysta waxaan u mutay ma aqaano wax khiyaano ah oo aan sameeyey ma jirto marka loo eego dhanka jacaylkayga laakiin sidan oo dhami waxa isu beegmeen ayaan ilaa iminka fahmi waayey anigu gabadhii markay aragtay in la soo socdo ee gacanta ay haysatay waa i sii daysay waana iga durugtay oo dib ayay u baxday jacaylkaygu waxay aad ula yaabtay sababta aanu gacanta isu haysanno ilaan iminka uunbay naga baxday oo naga tagtay ta kale isqabqabsi aniga shakhsiyan iguma aqoonin dhaqan ahaan marka suuqyada dhexdooda la joogo waxaa isweydiinaysaa talow ninkii miyaa la falay kalow kani miyaanu kiyaa taqaanay ahay way soo hor istaagtay weliba aniga iyo inanta dhexdayada ay soo kala dhex gashay gabadha iminka iyada igaga gudban oo indhaheeda ayay toos u hayaan cajiib indhahayga aniga way qalaleen xataa dhaqdhaqaaq yar ma samaynayaan laakiin iyada waxaa hubaal ah ilin ayaa indhaheeda soo buuxisay waxay igu tiri muddo 3 sano oo aynu sheeko jacayl wadaagnahay soo maaha ayaan ugu hawraar celiyey maalin aan been kuu sheegay miyaad xasuusataa maya ayaan ku jawaabay weligaa miyaan ku qiyaamayey ayay mar kale igu soo celisay maya ayaan ku dhahay maanta haddaba waad iga dhimatay noloshaydana isma sheegano kumana arki karo ilmo ayaa sida qasabad la furay indhihii jacaylkayga ka soo barqatay kadibna jaakadii bay igala booday markaasi ayay dhaqaaqday aniga oo leh may xabiibi sidaasi maahan ee kadaa intaan gacanta soo qabtay intay dib ii tuurtay bay igu tiri warna sii daa doqoyahow xumi waana iska baxday tii kale oo dhurmaysa ayaa sideedii sanka iga soo gashay aniguna anigoon isba ogeyn baan barta laabta ah gacanta ka saaray oo dib isaga tuuray soo halkii laabta ahayd ee aan gacanta ka saaray dibba gacanteedii ugalamaan soo noqon ee bartiibay gacanteedii iska taalay oo shaydaanka ileh halkaasi u yardaa gacanta haba ka qaadin iyaduna juuqba ma laha oo waa ay hadal daysay aniguna miyirkaygii waa uu maqan yahay oo isma ogi meeshuna waa maqaaxid 100 qof ay isdhex marayso ama isdhex qaadayso in yar kadib baan arkay gacantayda iyo sida uu xaalku yahay war ceeb weyna wixii hore tanaaba ka daran degdeg ayaan gacantayda ula booday inantii si ay tahayba anigu iyada ma garanayo iyada lafteeduna ismaba garanayso kadibna waxaan ku yiri walaal waxa dhib haysta waad aragtaa waan iska tagayaa ee galab wanaagsan may ma tagaysid ilaa arrimo badan aan kuu sheega mooyaane aniguna maba qaadi karo sheegis dambe iyo hadal niyadda waxaan iska weydiinayaa anigoo oo aad u karhaya waxa ay kuu sheegaysaa muxuu noqon doonaa waxaa kaloo anigu hay dhibka ugu weyn ee aniga haysta inuu yahay qalbiyo aan ilaalinayo iyo ixtiraamka ummadda kale aan u hayo waxa aan baqdin ka sii qabaa inay jacayl ii sheegato iyo waxyaalaha caynkaas oo kale ah waana dhibka ugu weyn ee markaasi dhici kara xataa hadday igu tiraahdo gacantaada ii soo jar wax kale oo aan sameeyo ma garanayo laakiin jacaylka ayaan aqaana oo anigu iyada iyo jacaylkaba dhib badan baan soo gaadhay anigu runtii qoftaa tagtay ayaan jecelahay gabadhanna walaalnimo iyo ixtiraam badan oo muddo dheer ah baa naga dhexeeyey waa qof mudnaanta iyo tixgelin dheeraada runtii xaggayga kale marka caqabada ugu weyni waa iyadoo wax jacayl ah ila gasha ilaahay wax kale ka dhig ayaan hoosta iskagala faqaya waxaan ku yidhi walaal soo daabal aan dhegaysta waxa aad ii sheegayso waan arkaa iyada lafteedu iminka jawigeedii naxdin buu isu bedelay hadalkiina waa uu ku dhagan yahay laakiin maskaxdu xawle ayay u shaqaynaysaa oo ay fikiraysaa halkii ay arrin ka bilaabi lahayd haddaba daawade
qaybta labaad ee barnaamijka malabka ama sheekadii malabka uu qoray Cabdullaahi Yaan Lacartan oo kala socoteen Mustafa Show anigoo Mustafaana idin socodsiinayay halkaasi ayaynu break ugu qabanaynaa haddii Allah awood leedmo qaybteeda saddexaad intii soo galino waxaan idin codsanayaa barnaamijkeena saaxiibadii la wadaagtaan haddii ay qisadan mid la mid kugu dhacday ama aad xasuusato cid ay ku dhacday ama saaxiibka kaaga sheekeeyay bal qaabkii loo maareeyay in aadna la wadaagtana way qurux badnaanaysaa kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaan Allah